haddaan ka hadlo caqabadaha ka hor iman kara saxafiyiinta iyadoo ay fooda inagu soo hayso xuska caalamiga ee saxaafadda adduunka caqabado badan baa ka hor iman kara hadda waxaan inagu joognaa deegaanka Soomaalida oo ka mid ah ismaamulada Itoobiya dhibaatooyinka ka hor iman kara saxaafadda ee sida dhayliga uga hor yimaado waxa weeyaan inuu wariyuhu uu xogta sugan uu u baahan yahay wariyaha sidaan ogsoonahay waxa uu hayaa xasaanad uu bulshada hayo marka xogaha bulshada uga baahan tahay xaqiiqooyinka inuu helo ayaa ku adkaado wariyaha taasi waa caqabada ugu weyn ee ka hor imanaya xorriyadda saxafiga oo saxafigu loo baahnaa inuu helo waxa uu isagu xaq u leeyahay isla markaana uu gudbiyo bulshadiisa waxa ay xaq u leedahay ee iyaduna ka sugayso warar sugan sidii ay u heli lahayd marka taas waxaan oran karaa caqabado badan baa ka jira xagga saxafiyiinta deegaanka Soomaalida ee joogno dhibaatooyin badan wariyuhu marka uu ku sugan yahay shaqadiisa uu gudanayo waajibaadkiisa caqabado badan baa la soo dirtay taa waxaan u rajaynaynaa in xal laga gaaro oo dawladda iyo hay'adaha caalamka xuquuqda islaamka oo u cololeeyo xuquuqda aadanaha in ay ka gaaraan wabillahi tawfiiq